بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن داوda yaala taariikhda caawa 27 bishii 7 2023 halka nagala socotaan oo barta Facebook iyo YouTube-ka Calas 24 boos qodobada wararka caalamkooda ugu weyn waxa kamid ah shir madaxda Afrika oo ugu furmay maanta dalka Russia caasimadiisa labaad madaxweyne Putin oo madaxda Afrika ka farxiyay wasiirka gaashaaniga dowladda Russia Sergey Shoigu oo booqasho ku jooga dalka North Korea-ka oo u dabaaldegaya sanad guuradii ka soo wareegtay 74aad ee xilligii la aasaasay Pyongyang ee xukuumaddaasba maxaa sala tusay maanta uu la yaabay wasiirka gaashaaniga dowladda Russia dhowrtiskii military ay qabanqaabinayeen dowladda Russia ee China oo soo gabagaboobay ciidamada dowladda Russia oo soo bandhigay taangiyo nooc ugu dambeeyay casri iyo artillery ayagoo baacsanaya ayaan warka ku haynaa ciidamada Ukrainiyiinta oo jab xoogan loo geystay dowladda Mareykanka oo soo bandhigtay diyaarad drone oo la yiraahdo magaceeda MQ-9 oo wiigan gudihiisii dowladda Russia diyaaradaha dagaalka ay leedahay MiG